هنا أدوك الفقيه واقرتي إن كينيا هذا كنتم سنة جورودي حرية الدبال دقيسة إن قبل NFD إن أو قبل سومالي ذا يبارد أي كبدينهين حرية ما أنت ذلك كينيا يكون نالون يسوع كالين إنتلك بوكا جري هذا حرية horta xamdi aan laba u kala qaadna qayb waxa weeyaan dadka oboranka ah ama dadka Soomaalida ee ku nool gobolka loo jeedo NFD Northern Frontier District of Kenya si hadii loo fariyo xornimada qayb ay ka qaateen warqad uu qoray governor Ingiriiska uu qoray oo uu qoray governor Ingiriiska ee ku nool Somaliland ku nool warqada aan anigu hayo waxa ku qoran uu leeyahay dadka Soomaalida ah waxa ay hub iyo sanad u gudbinayaan dadkii macnaha maamulka la oran jiray oo xornimadii u dagaalamayay kukuyadaha ay hubka iyo sanad u ka heli jireen ayadoo waqtigaas qaaradda Afrika ay ahayd xilli dadka Afrikaanku ay baraarugeen oo ay doonayaan inay macnaha heeriyada iska ridaan oo macnaha dadka macnaha gumeystaha ku habsaday iska raadiyaan marka waxa jiray Africanism waxa la yiraahdo jiray Africanism waxa Afrikaanimo waxa la jirtay marka dadka Soomaalidu hubka iyo sanada ay ku dagaalamayaan maamulka ayaga ayaa bixiyay laakiin ayaan darada haysta waxa weeyaan wadanka Kenya maanta ayaan darada ugu haysta waxa weeyaan taayada maanta loo moogsoono laakiin waa wax cad oo documentary la weeyaan hadii Soomaalidu hub iyo sanad aysan u gudbin lahayn maamulka maanta Kenya xornimo bay qaadateen dhinaca taa isaga riix marka dhinaca kale soo noqon marka dhinaca kale waxa weeyaan 1962 wadankii Ingiriiska ee dalkan gumeysanayay waliba gobolada loo yaqaanay Northern Frontier District of Kenya waxa laga qaaday referendum gobolkaas waxa ku noolaa Soomaali Boran Gabra Turkana Sambur niman loo yaqaan Burji iyo niman loo yaqaan Gabra intaba waxay u codeeyeen markii codka la qaadayay Ingiriisku wuxuu kala dooransiiyay wuxuu soo diray nin Nigerian oo baarlamaanka Nigeria ku jiro iyo wuxuu soo diray nin journal oo Canadian ah ay u soo diray si marka referendumkii wadanka ay dadkaas laga qaado inay Kenya qayb ka noqonayaan iyo inaysan Kenya qayb ka noqonaynin markii referendumkii waxay u codeeyeen 87% inay Soomaaliya ku biiraan maxay dadkani waxa isku xirayay laba shay weeyaan mid waxa weey dadkan waxa weeyaan xoolo dhaqato weeyaan maadaama macna dadkii beeralayda ahaa xukunka ay xornimo qaadanayaan marka beeralayda iyo maartii iyo xoolo dhaqatada waxa ka dhaxeeya badana xayfaltan baa ka dhaxaysa marka dadka Soomaalida maadaama dad xoolo dhaqato ay ahaayeen dadkan isku lifestyle bay ahaayeen markii ay Soomaaliya ku biiraan oo ay kamid noqdaan ay jirtay waxa marka inta dheereed dadka Soomaalida ah waxa ku weynaa waxa loo yaqaan ban Somalism waxa la jirtay wax xilliga jirtay oo ahayd in Greater Somalia in Soomaaliya dadka Soomaalida adduunka meel kasta ha joogaan ee hal meel isugu keeno fikradda waxa bilaabay nolon jiray Anis Pavan oo macnaha ahaan jiray wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska sanadii 1945 gobolada waqooyi ee Soomaaliya maanta la baxay Somaliland ayuu fikradda ku biiriyay fikraddan Soomaaliyeena goboladaas ay ka soo jeedaan runtii ayaga ayaa keenay ayaga ayaa curiyay markii xornimada helayna ayaga ayaa calanka qaaday oo koonfurta geeyay ayagoo markaa doonayo in Soomaalida meel kasta ha joogaane inay midoodo hal qaran loo sameeyo marka taa waxay ahayd mid nin kasta oo Soomaali ka go'naa marka gobolada NFD waxa ka tilna xisbi loo oran jiray MPP Northern People Progressive Party ayaa ka talinayay xisbigaas marka wuxuu ahaa xisbi macnaha doonayo in gobolkan NFD uu ka mid noqdo Soomaaliya inteeda kale sida marka mujtamaca Soomaalida meel kasta ha joogo ay marka hal qaran u sameystaan marka constitutionkii marka la sameeyay Lancaster lagu sameeyay 1963 oo Kenya loo sameeyay dadka Soomaalida ay gobolka kama qayb galin maxaa yeelay ayagu waxay filayeen maadaama ay codeeyeen inay Kenya ka go'ayeen ay filayeen laakiin ayaan dara ma dhicin marka ma dhicin sababtoo adkoodii ay ku muujiyeen way u heli waayeen inay gooni istaag sameystaan sababta waxa weeye laba shay ayaa loo aanin karayaa waxay ahayd hagardaamo iyo dhagar ay sameeyeen gumeystiga Ingiriiska ay sameeyeen oo dadka Soomaalida dadkii Boranka dadkii marka dadkii xoolo dhaqatada ay ku sameeyeen dadkii xoolo dhaqatada gudaanba ay ku sameeyeen midda labaad waxa weeyaan Robert Ingala Jomo Kenyatta ragii marka u halgamayeen min waxay aad u xoog badan bay hayeen waxa ka go'naa in gobolkan ay Soomaaliya ay Kenya ku biirto in Soomaaliya ku biirin ayaa ka go'nayd wayna ku dadaaleen wayna ka dhaadhiciyeen gumeystiga Ingiriiska ahaa inay sidaas sameeyaan laakiin ayaan darada dhacday waxa weeyaan taa marka waxa dhacday in dadka Soomaalida ay ka xumaadeen markii lagu dhawaaqay in gobolka Northern Frontier District of Kenya oo ka mid noqdo wad Kenya intiisa kale
dadkii Soomaalida marka hub bay qaadeen marka waxay sameeyeen waxa loo yaqaan shifta war ay wadanka looga yaqaanaa dadka Soomaalida waxay u yaqaaneen liberation war dagaalkii xorriyadda ay u yaqaanaan martay dagaalkii xornimada ay u yaqaaneen dad hadii uu xornimo u qaado dad hadii macnaha uu dagaal qaado laba shay inuu mid fashaa maartay in dadka ay la dagaalamayaan ay la heshiiyaan oo xuquuq macayna loo ogolaado ama in halgankoodu iska socdo ilaa intii xornimo ka helayaan sida Falastiin oo kale laakiin labadaba ma hidhicin maartay labadaba kuma hidhicin 1967 ayaa waxa lagu qabtay shir waxa loo yaqaan Arusha Accord ayaa lagu qabtay waxa marka dhaxdhaxaadiyay ninkii la oran jiray Kenneth Kaunda oo marka madaxweyne ka ahaa Zambia shirkaas waxa ka qayb galay يعني رئيس وزراء الصومالية الله نحرسته محمد عقال محمد عقال بك قيب قلي dhinaca Kenya waxa ka socday ninka la oran jiray Daniel Moi oo marka ahaa madaxweyne ku xigeen ahaa iyo niman chief ah oo laga keenay yani Northern Kenya laga keenay oo ku jiray nin chief oo caana la oran jiray Chief Khalif Maxamed la oran jiray marka meeshii marka waxa lagu sixay marka in lagu soo afjaro يعني dagaalkii macnaha yani shifta waa markaan dib u noqdo dadkii markay kaceen oo ay yani ay kaceen oo macnaha ku kaceen dawladii Kenya ay ku kaceen yani waxa runtii hogaaminay loo jeeday Axmed Sheekh Yuusuf ayaa hogaaminayay oo macnaha reer Mandera ahaa markii dambana waxa rag waxa kamid ah oran jiray Deeqo Macalin Sambul ayaa kamid ahaa oo markii dambana NFD madaxweyne ka noqday yani NFD waxa weeyaan Northern Frontier District of Kenya Liberation Front ayuu madaxweyne ka noqday nin wuxuu ahaa waa la xiray isaga naftigiisa 1963 ayaa jeelaha lagu tuuray wuxuu ka soo baxay 1967 kadibna wuxuu aaday marka iyada wuxuu u sharaxnaa Deeqo Macalin Sambul wuxuu u sharaxnaa in baarlamaan Kenya marka uu ku biiro ayuu u sharaxnaa laakiin wuxuu ka doorbiday inuu ka taga oo Soomaaliya galo marka yani wuxuu marka asaga aaminsanaa meeshii uu ka sii wada ayuu marka ilaa Soomaaliya ka marka dambana hadda waa Soomaaliyeed wuxuu ku nool yahay magaalada Garissa iyo hadda ku nool yahay marka waana runtii taariikhda Soomaalida ee gobolkan qayb weyn ku leh magac weyn ku leh weeyaan ka soo gudo marka markii arinta ay dhacday oo Soomaalida ay macna ku biirtay gobolka ay ku biirtay yani gobolka uu ku biirkay intiisa kale uu ku biiray dadkii Soomaalida ahaa oo heshiiskii la saxiixay Arusha Accord la saxiixay haddana ma ay helin yani waxyaabihii ay ka filayeen dawladii Kenya inay ka helaan waxba kama helin مثلا markaan soo qaato 10 sano ayuu wadankan xornimo haystaa jidka kaliya ee loo dhisay ee maanta laami ah waa 7 kilomitir waa magaalada wuxuu dhaxmaraa Gaarisa dhaxmaraa magaalada Gaarisa qabaxeedan oo ku ogyahay maartay waa 7 kilomitir waa 10 sano ka bacdi warka wadanka buu xornimada helay waxyaabaha runtii la yaab kale waxa kamid ahaa waxaad arkaysaa gobolku wali dad badan oo tacliin fada badan inay helin markaad fiirisid ardayda jaamacadaha soo galayo oo gobolka ka iimaanaya markii la barbar dhigo yani gobolkaas laga soo bilaabo 1963 dalkan markuu xornimadiisa qaatay ilaa iyo sanadan 2013 markaad fiirisid tirada ilmaha Soomaalida ah ama ardayda Soomaalida ee jaamacadaha dawladda soo galay waxay dhanyihiin 9670 arday markii oo macnaha haystay darajada koobaad markii la barbar dhigo hal magaalo oo la yiraahdo Kiambu County magaalada Nairobi kama dheera ardayda ka soo gashay waxa lagu qiyaasay ilaa 267 oo ardayna public ay ka baxeen maartay marka waad garan kartaa gaabka u dhaxay intuu leeyahay ka soo gudub konton sano aan soo dhaafnay gobolkaas haba yaraatee wax jaamacad oo ku yaala ma laha mar dhow ayaa waxa laga furay sanadii aan soo dhaafnay wax loo yaqaan Garissa University oo Moi University ka tirsanadi Constitution Moi University ilaa hadda wax public university oo ku yaala ma laha dhinaca markaad fiirisid isbitaalada markaad fiirisid ama health sector markaad fiirisid waxaad oran karaysaa isbitaal maanta qiimo leh oo ku yaala ma jira kan ugu weyn waa midkan ku yaala Garissa loo yaqaan professional hospital marka cudurrada macnaha la daaweyn karaya ay u dhimanayaan haweenku caruurta iyo dadka macnaha waayeelada ah ka soo gudo
waxaad markaad fiirisid dhinacyada markaad fiirisid beeraha markaad fiirisid waxba yaraatee beero oo la taaban karo oo gobolka ka soo baxa mala gobolka waxa mar laba weey ayaa mara webigan Garissa la yiraahdo oo Tana River la yiraahdo Garissa mara Tana River webigan loo yaqaan Daawo asna mara magaalada Mandera mara ilaa hadda markaad fiirisid wax qiimo leh ka soo baxay malaha dhinaca warshadaha waxa maanta warshad qiimo leh oo gobolka ku yaala haba yaraatee ma jirto waxa moodaa maartay sanadihii hadda ugu dambeeyay markii arinta waxaad moodaa runtii waxaa jiray 1964 waxaa la soo saaray waxa loo yaqaan Indemnity Act Cap 44 Law of Kenya stipulate that any Kenyan security apparatus can kill, torture, rape, even destroy. يعني معناه waxay tahay waa sharci macnaha dhigaya waxa la Indemnity Act Allah qodobka 44 weeyaan wuxuu qeexayaa oo sharxayaa يعني ciidamada Kenya security Kenya inay dili karaan dhici karaan kufsan karaan يعني ay burburin karaan يعني dadka Soomaalida ee gobolkaas ku nool ayagoon haba yaraateed ciidankaas aan maxkamad la keenin maxkamad haba yaraateed la keenin maarta ama sharciga aysan hor imanaynin يعني Indemnity Act la yiraahdaa sharci bay ahayd yani waxa way waa sharci waa wax la sharciyay bay ahayd marka waxay keentay in gobolka marka ay ka dhacaan xasuuqyo far badan ay ka dhacaan مثلا ka soo qaad xasuuqi Garissa ee 1980 يعني guri badan in la iska gubo يعني gabdho badan la kufsado dad badan la barakiciyo waxay ahayd policy bay ahayd ka soo gudub 1984 waxa dhacay waxa jimcida qurmaha ka dhaxaysa ay ku tilmaantay xasuuqi ugu baanaa ee abid ka dhaca wadankan Kenya ka dhaca maarto waxay ahayd xasuuqi loo oran jiray waa gala dad kumaankun gaaraya ayaa xalusu keenay meel macnaha garoon diyaaradeed ah magaalada waa gala la yiraahdaa waa tuulo yar oo 12 kilomitir u jirta magaalada Wajeer ayaa la soo keenay halkii baa la geliyay dharkii baa laga dhigay dadkii waa qaawin yihiin kulligood waxay ahayd bishii February 10keedii 11keedii 12keedii 13keedii ilaa 14keedii meesha lagu hayay dadkii waa la qaawiyay cunto lama siinin biyo lama siinin ilaa qaarkood ay gaajo meesha ugu dhamaadeen qaarkoodna markii carreen in yani lagu furay macnaha xabado lagu furay qaar fara badan ay duurka ku dhinteen qaar fara badan macnaha yani ay ku jiisoobeen oo waxa sameeyna marka waxay yihiin waa ciidankii qaranku lahaa ee loogu talagalay dadka inuu ilaaliyo dadka inuu cadow ka difaaco loogu talagalay weeyaan dadkana waa dad Kenyaan ah oo ayagu macnaha doonayo oo macnaha canshuurta wadanka bixiyo oo dalka ku nool macnaha waxa arkaysaa marka sida loo gacan bidixiyay oo aysan qayb ugu ahayn xornimada dalka aysan qayb ugu ahayn maartay waxa kaliya oo oran karaya waxay tahay markii ugu horeysay ee runtii aan dareennay inaan Kenya kamid noqonay waxay ahayd doorashadii ugu dambeysay tii xigtay ayad bada dhalinyar fiican oo macnaha focal ah inay soo galeen maartay sida Abdul Qaadir ninka la yiraahdo sida Ducaale yani maartay ninka la Ducaale Barre dhalinyar faraq badan oo runtii enlightened ah macnaha sida yani Yusuf Xasan rag badan oo marka dhalinyar oo fiican marto runtii yani aan oran karayo waxay dib u qaabeeyeen fikradii marka laga lahaa dadka macnaha dadka Soomaalida ee Kenyaanka fikrad ay dib u qaabeen oo oran karaya hadda soo galay laakiin taariikhda gobolkaas way madowdahay waxaad ii sheegtay gobolka dhibaatada uu la kulmay wuxuuna qayb ka ahaa xorriyadii dalka Kenya gobolka NFD dagaalkii shiftada ka dhacay 67 Arusha Accord lagu soo afjaray markii heshiiska la qaatay kadib waxaana dhibaato ah Soomaali badan kontonka sano dhalinyarada hadda ku soo birtay ka sokow mas'uuliyiin dawladda way ku lahaayeen oo Soomaali ah ama xildhibaan ha ahaadaan ama wasiir ha ahaadaan maxay tahay sababta keenaysa intaas oo dhibaato inay soo wajahaan horta xamdiye Madiina ogaateen muhiim weeyaan qaaradda Afrika markaad eegtid يعني markii xornimada qaateen ilaa iyo 900meedii rag ka talnay waxaan rag macnaha dictatorial maartay oo xog kaliya talasho ayaa ka talinayay marka gobolka waxa ka dhacay election bay ahayd waxa ka dhacay election ma ahayn ee selection bay ahayd yani doorasho ka bay dhicin
madaxweynaha imaanaya wuxuu leeyahay hebel baarlamaanka ha soo gala aniga qof kale ma rabo uu leeyahay dadkii marka kiiba isugu tagayna la soo gelina marka hebel marka muxuu yahay marka hebel waxa weeyaan inay madaxweynaha isu dhow yihiin oo policy madaxweynaha fulin kara oo haba yaraatee aan ka fakirin wax ka baxsan calooshiisa aan ka fakirin marka dhibka jira kaas weeyaan marka raggii marka xukumayay raggii baarlamaanka noo galay laga soo bilaabo markii wadanka xornimadiisu qaatay ilaa iyo aan dhahda 1907 aan dhaha ama markii aan intaas aan aragda dadkaas waxay dad dal soo xulay bay ahaayeen dad xukuumadihii jiray soo xuleen ama xukuumadii Kenyatta ay soo xushay ama xukuumadii Moi ay soo xushay laakiin markaad fiirisid hadda ay Kenyaanka ogaanayaan wanaaga dadka Soomaalida ay leeyihiin hadda dadka Kenyaanka ogaanayaan yaani dadka Soomaalida inay dadka inay wadankan wax tari karayaan waad aragtay hadda dhalinyarada baarlamaanka soo gashay dhalinyarada soo gashay oo wadanka runtii waxtar u amaartay marka hadday dareemayaan maartay inay wadanka waxtar u yihiin dadka Soomaalida waxay leeyihiin gobolka labaad ee ugu weyn wadankan ay leeyihiin maartay ay leeyihiin waa dad micnaha waxa runtii wadanka qayb ku leh waa dad wadanka horumarka qayb ku leh waa dad dadka aan laga xigin marka in loo dhaqmo si dad micnaha yaani setting yaani second class citizen oo kala ah runtii hadda inay noqonayso Soomaaliya constitution cusubna runtii waxa moodaa runtii aad u saaciid aad maarto u kaalmeeyay Soomaalida aad buu u kaalmeeyay maxaa yeelay constitution kan wuxuu qeexay waxa loo yaqaan devolved system of governance ayuu marka qeexaya maarto in xukuumadihii la jijibiyo xukuumadda maamul hoose la sameeyay maarto taas runtii qayb weyn bay ka tamartay